Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin wada salaam meel kastoo adduunka joogtaan waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan walaalahay gacmo furan kusoo dhawaada insha allah videoga ka horeeya waxaa la dhahay walaalay codkaaga waa gaabaya maxaa ku dhacay yaa walaalay maxaa igu dhacay waaba yaabo markii gadaal ka fiiriyaba saxay ahayd videoga codka af wax ka qaldanaa fahanteen marka insha allah waxaan rajeynaa videoga inaa codkiisa ku qanacdaan oo codka fasiixiya insha allah marka waxaan qabay martiqaad yar oo iska qoota iska dhehleysas kusoo dhawaada gacmo furan waa xilli habeen marka waxaan halkan ku karsanayaa laba niyad oo aan rabaa talaajada inaan gashto fridge-ka insha allah halkan waxaan kusoo diyaarsaday 2 koob oo caano kadibna waxaan ku darsaday deciliter sokor 1 deciliter oo sokor 3 qaando oo laba niyad marka waxaan qaatay geedkaas oo yacni brushka wuxuu ka caawinayaa ushaan oo yarta hadda oo walaaqay hadii aad awoodo haysato inuu soo burtuur iyo waxba ka yeelanin waayo labanid aniga gooni uma soo qasin ina yani meel gooni inta ku shubto ma soo qasin marka caanaha ayaan dusha kaga daray soo geeda ay ga caawinayso inay soo marka hadda baaquliga ayaan ku soo shubtay bacdaas plastic-da ayaan dusha kaga xirayaa bacdu waxay iga caawinaysaa hadii aan meel dhigo oo liirsato hadhow wuxuu yeelan qolfo yani labeen camal koris marka labaantas ma rabi inay yeelato insha allah bacdaas ayaan dhab ku soo waliba safiican ayaan ugu dhajinaa sida arki doontaan waa safiican kuleel oo ka cabsanaa marka safiican ayaan ugu dhajiyay oo ku duuduuba dhac meel ayaan iska dhigaa markii qabowdo 20 daqiiqo 30 daqiiqo meel markaan dhigo kadib ayaan fridge ku xarisanaa marka haddana waxaan ku tuuranayaa basbaashin aan rabaa in dabka iska sii saaro inta filin iyo wax iska daawanaa maadaama ay tahay xilli oo yani weekend marka waxaan isla dabka ku sii saarnaa saf fiican isku ka dhaxgala ma fahanteen subax way waqti uma helay insha allah marka halkan waxaan ku soo diyaarsaday hal xabo basal weyn xabad yaanyo fresh iyo toon kabsar caleen basbaas cagaar halkaas waxa ay taalo yaanyada baakadaha ku jirto marka intaan ayaan saf fiican lafta iyo dhuuxa iska soo gelinaa fada saf fiican soo shiido mashiinkayga rag oo soo siiyo kadibna waxaa la soo orday digsigayga yaraade digsiga waxaan ku daray hal qaando saliid camal yaanyada ku gidi waxaa la hal mar waxaan beerka isku geliyaa laan fahanteen hab isku wareerin ka fadhiisa meel markii elaborationka ay soo shiitay kabsar caleento toontiyo adduunkiyo dhan si fiican soo shiitay gab ku sii hadana halkan waxaan arkaysaa waxaan dusha kaga darsan yaanyo shiishiid oo aan rabo xogo inaan ku guduudsado because cagaarka ku badanaa hadii kale hadhow kadib waxaan sameeyay intaas si fiican isku dhex galiyay bahashida qaandada soo qata dhac oo isku soo dabool dabka soo gaabsada number 2 aad soo dhigtay ha iska saarnaat 3 saacadood 4 saacadood ha iska saarnaat number 2 soo geystay ma fahantay biiga ku soo dhaad ilaah allah musta'an ilaah kuma darnaada dhag waxaan soo qaatay bahal kabsar caleenta gacanta la rufruf ku siistay ma fahantay midi iyo wax dhan u qaadanin waxaan dhahay dhac sideeda ku ahaato meeshaan waxaan rabaa bahal digaag digaag ama door hadda u taqaan midda u taqaan oo lagu yaryar inaan nagtkayga diyaaraba waxaan soo qaatay caanaha yogurtka oo Turkish yogurt waxaan xawaasho dhan oo ku daray hadda xawaashkaas arkaysaan waxaa loogu talagalay doorada halkan waxaa ku haystaa filfil iyo lindhanaan isku darsan haddana filfil iyo basbaas insha allah oo la qalajiyay intaba marka doorada waxaan sameeyay digaagtii maqaarka koro dhan ayaan ka soo dhilay oo yani xuubka koro dhan waa ka soo fiiqay marka intaan oo khudaartan iyo yani intaas isku dardaraa waxaan ku darsaday waxaan idinka iloobay paprika يعني حوايه الله اكبر في صومالي انتو كادي بربروني قال قلجي اسكرال نقض في صومالي قجا اصلا قروا قدال دنب waxaa kaga darsaa arkaysan wax yar oo color food color cuntada colorka loogu talagalay ambriiska hadan saliid ayaa beerka u gelinaa wax yar ko saa arkaysan inta ay saf fiican isku soo dhaxgelinaa lafta iyo dhuuxa markay isku soo dhaxgasho waxaan rabaa doorada inaan ku masaajeeyo kadibna bacdab inta ku siiyo maxay diibataan dhiiraan fahanteen habeenkii oo dhan waxaan rabaa inay lafaha dhuux ay ka gasho ma u baahnid
يعني inaan karkariyo subaxii oo kaleeto hadda marka intaan la dhigo fridge-kan gelinaa talaajada kadib waxaan habeenkii oo dhan ayuu bariyaa intaasoo dhan dhexda ka galayso yani waa si fiican ayuu laftii dhuuxa ugu galaysaa maba kaaga baahna subaxii inaad biyo ku karkariso waxaas foornada shido u dir hal sac dabkan u gaabsa cunto macaan haddii ay rabtid dabka u gaab insha allah cuntada markaas way ku macaanaanay waqti in la siiyo ay u baahan tahay marka sida arkaysa haddana waxaa waaye gacanta la soo nadiifiyay waa la soo qalajiyay dhagta la gedina intaas ay si fiican loogu marina loogu masaajeena intaan intaan waa iska kaftan qof kasto yani soo sameyn karo sida arkaysan kulay saas ayaan sameeyay deel iskaga daba haray labado xabo digaaga xagga goonida u saaro aan rabaa baaquligii waxaan ku soo qastay raabka la iskaga daba haray taagana dac kasar caleentiisa waa taas ka dhex muuqata halaasaan ka rabaa aniga ma jarjarin kasar caleentiisa xogaan nool ku ritay marka baaquligii aan soo qaatay oo marka aan ku qasay oo raabka igu haray suugo yani xawaashidii dunida ay ku jirtay dhag laba xabo digaagan ku soo walaaqay dhawaan soo siiyay meeshaan ku soo ritay hadana ku soo cistay sa arkaysan dhag aan ku soo siiyay naftuur yarko iska jira iskaraal noqdo waa la soo carar meel aan geliyo aan weysanaa faanteen yani ciriir talaajada ugu yar insha allah min subax ala gaaray hadda habeenku iska seexday subax waaga markuu bari hadan jaf asoo waxaan dhahay naag la furfadhu ma yaa ninkii falkiisa al ku celshaa ma khali jira ma faanteen bismillaahir rahmaanir rahiim fadhi maba aqaana waa lagu imaaha sundusay haddii li dhaho maba fadhiista tug waa taagana ilaa waaga ka bariya ilaa habeenka saacada sirta intaan jiifa ma faanteen haddii kale waa surnaha maanta dhoo fikira waxaan leeyahay oy maxaa fiican maxaa sameyn kartaa maxaa jeclaa kartaa marka ma faanteen halkan waxaan kasoo tuuray afaara yar oo casariyo ku fiican ma faanteen koob yar yar soo qaatay dhac buskud iyo adduunyo waaye oo idinka daba geena insha allah hadda markaan waxaa fiidiyooga iga duub aan ku jiro ma faanteen iga daba geeya marka waxaa waaye stress yar iska jiray wax iska boobsi inta lagu jiro kulli lagama wada gaari in la wada duubo insha allah waxaan rajinaa laakiin haddii inaad sameysa taqaanaan insha allah haddii qof jeclaadana commentiga igu reeb waa idiin soo geli doonaa insha allah iyadoo faahfaahsan oo dhammaystiran kaal iska arag waxaa waa casiri yar oo fudud oo maasha allah kaal iska arag waaye isku qabooji allah alaabta inta sheekeysanaysaan marka halkan waxaa dush kaga daadinayaa buskud yar oo buskudkii aad arkaysin oo yani marka oxysimay dabaqa koowaad saddexaad ma laha kadib dusha kaga daray buskudka waa noocaas buskudka aan isticmaalay insha allah kadibna waxaan sameeyay dhac markii haddana qaybtan kale waxaan ku sameystay yani uriyo oo qaana uriyo kole buskud kale madow waaye af Soomaali ahaan ma ku garanayo haddana waa soo fakada allahumma musta'aan calaamaad aan dhaha ma fahanteen meeshaan waxaan ku qalajisanaa hilib shiishid oo aan rabaa sambuus yar inuu ku boobsiiyo kabsar caleen yar iyo waxaan isku soo jarjartay basbaas hal xab basbaas hilibka beerka u geliyo xabad toon inta markaan ku shiilay hilibka oo wixii qoyaan ka dhan aan ka bixiyay oo soo duubta sambuuskiga dalaq iyo gilgiliya la hal mar faatay jawiga waa roobeysana waa nimceysana nimcatu rabbi allah qabowga maasha allah ilaaha nooga raay ma faanto marka kuleelka badnaa marka digaaga ayaan la soo baxadana tub ilaa xal dhan meesha noogu jiray waxaan u dirayaa foornada insha allah 175 ayaa u geystay waxaan u daayay hal saac bar ayuu ku jiray sidaas quruxda badan oo maasha allah kaal iska arko ku soo baxay lagama sheeko karo dhadhanka insha allah waxaan rajeynayaa inaad sameysan doontaan halkan waxaan kusoo qastay waa bariis aan kusoo diyaariyay waqaacaya biyo karkaraayo ayaan kusoo la dhigay biyo kuleel oo soo karkariyay hawrarta qeyr ilaa si hawrarta ay bartay ma fahanteen bariis biyo kuleel la dhigay hawrarta ka bartay maasha allah digsiga halkan waxaan kusoo rirtay abkee xawaash aan soo shiishiitay kabsar caleeno basale
toonay adduunka dhan markaa dhac kasoo siiyey bariiska dee waa kaasaa kaal iska arag maasha allah sidaas quruxda badan oo kusoo baxay dee waa kanahe yaa islaantii yarad waxay soo diyaarisay dhac ay kasoo siisay miiska iska soo saarto waxaan dhahay qadada kadibna waxaan idin leeyahay casriyo wanaagsan iyo sheeko iyo shaah